kulankan geeka kodhay magaalada Baydhabo may balin ku dhowahay hanaanka reedan feeriyowga dastuurka dalka may banaha ku qayb galay mas'uuliyiin ku shal dareeray wasaaradda dastuurka dawladda federaalka tan koonfur galbeed Soomaaliya iyo ku dareeray ururada bulshada rayidka maamulka degmada Baydhabo ee Malaaqya Abdulqaadir Sheekh Cali Barako gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya yaan ku horeyn sharaxay ujeedada leenta oo baray dhalinyarada kulankan la iskashaanay ee walyaabo isku saabsan ay guud ahaan barnaamijka sida agaasimaha wasaaradda dastuurka ee koonfur galbeed isku dhawaajiyay ana ku muuqato boorka way waxa tababaryaal barnaamijkan shirmee aqoonswadaasi kalame wal kalame ka barada way la siin baray sidii dastuurkan ay isin deersii fadeen dadka meel raay siin ku dambooy tiimkan tafadhiya hada way malaa'ikootumiya keena way suurgalahay meel raay dadkii markaas in araga إلين قاعدنا أو لنتاو برا تاو برحول لسي يون سي دقموين كلا كفر قلبي وندير سيان وين نقدر دون ترى معلمين وين نقدر دون ترى دور براو وين نقدر دون ترى دير سيا وبرنامج كذا قفول بميل راي أو مسؤولية مسؤول كلاس إنه سميرسيد لكن وين فضي مقالوا بدنا تيم لنتاو برا مركز تاو بريالا نقدر دون تان ولا لازم حول ساسو way fadaanahay way dhiyaasay inta badan in seminaarada markii la kooyo ama tababaryaasha la kooyo lanka telefoon banaanka la seeda isku gooy xataa si uu roog shan daqiiqo baargaas uu soo lankay maqom hal saac ama saac ma quraado kooyo hadana ma in saas loo helo casharkan ku duwani afayeenka galo malaaqyada koonfur galbeed malaaqdaro Yacquub yaa kumid ah mas'uuliyiinta fikirsha ku dhiibay barnaamijka leen ku hadalaya arrimaha dastuurka dalka dhammaan ku qaybgalayaasha shirkiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamkii dib runtii eedeedaan ka faraxsana mayba kuma tahay inay dadku ku qayb galay Muqdisho oo leen ku hadalaya arrimaha noocan oo kale ah eedeedaan kama naqaana in hanin guriyo roognin shaano maamul goboleedkii koonfur galbeed la arro dastuurkan wala alla wala aysan ka darsadaasan isan oo shacabkii king iyo maamulkii iyo matqaana odayaalkiina dhaqanka dhamaantiin ku qayb galasaan cidii ka shaqayteen kama naqaan cidii galan ku jeesateen kama naqaan wasiir agaasimaha howlan hadani indaadi hayaan sagaar aan kama naqaan maxanan kadib ma la isku qoyn meela ciyaar ma qarash badan bahe وقت بدنا به إن لكو فائدة يصير لي بهني ولا لكو هذا الآن مسيرك ومدة واي مسيرك ومدة عيار من نقداس سيسم كور قبطان تستور كأنا ما يكقرنا أفصومالي جماعي مهتري واي هلا كمية وزيرة كفر قلبت سوماليا أو كمية هاي وزيرة والبرشة بلانتا أقرب كهاي برنامج يفكر شو هذا ليه runtii eedan ka faraxsan geega intaas kula qayb qaadan barnaamijkan quruxda badan oo lagu hadalo waxbarashada madaniga runtii waliba SNT oo wasaaradda dastuurka dawladda goboleed koonfur galbeed iyo dawladda federaalka iyo aragayada muhiimsan oo bulshada muhiim ee ku dhawaajiya waana heligi dhanbaahnaa iyo sheene mayweeli dalka Soomaaliya burburkii ku soka dadku waliba baahanyiina tusaale ahaan Soomaalida wali beeraase albaqari ka sakii ku dhageysanaba iyo kuwii marka maadaama dalkeen badan burbur ka jari dadku wali baahanyiina dawladnimada intii fahmaan runtii taas muhiim ah dawladda naga faday meel walba deera faday walaakiin bulshada maamul fadaas dawladda naga tafadaas fahamsaniina dawladnimada fahamsaniina dastuurka marka civic education mise walbarashada madaniga to eedan muhiimsan gaar ahaan dhalinyarta dadka odayaalkii runtii ma baahan inta wallan ku dhika iyo ay lidgeega dhalinyarada wal dhika maadaama jiilkii bariyay dalkan bedel fadi oo horumarkiyo dhinaca walba siyaasadda ka qayb qaada fadiyo marka walbarashada madaniga dastuurka sida mas'uuliyiinta horeeyay oo sheegan dadka dhalinyarada waliba aaminsiina mise dad badan xaafado iyo ku nool waliba aaminsiina wal qaldantii dastuurka waliba ku aaminsiya fikrado waxyaabo oo ku baxsan diintantii oo inuu sadika ya aaminsiin laakiin dastuurka waliba baahanyin bulshada in la fahamsiinan dadka lagu dhaadhicay wala oo bazaayka committee baarlamaanada
intii geeka baydhabo saasoo kale markaan ku socodsa arrimo oo ciid farxad badano wayla dadka u qayb gala doona maalmo socod insha Allah ta'ala intii lagu doona intii wal macna leh kordhiyaan oo walna ku qayb gaadaan may waxa hadii la yiraahdo dastuurka dadka koonfur galbeed gaar ahaan way badanaa intii aanu la fahansanayn xaqiiqan email ay sida taafko kale maay maxaa tiriya la yaray lamada luqadood wadanka laakiin dastuurku wali af maayga ma ka qoran sunaftitiis markan insha Allah way rajay sunaftiti inuu email ay qayb kumida la bedel maay la ka qor translation la ka samay cause English book qoran already luqada wadanka ma marka English book qoran marka maay la bedel maay ka qoran la ka qoran ay wali dadka may fahmayaan qofka banaadinka may la reemay wal ka fahmay bas afka aadis bas لكن أفكار هذه لا كدرا لكور فهم كور لكن completely serious أفكار إذا فهم لا من فهمه تذكر ما له هاي بلشوين تكهذا لاس ما له هاي لغة ماي كمان باهوا ينعن قبضان اللي ماي قصدك بدل الدار جنود سميتون إن شاء الله تعالى ساسوك ما يبغى دستور كن ويبغى دري ما سمرك قارد دولة قولة هذا دل فيري تذكر بس فهم سنجني بدلانجي already مرول بكتوضاعن عن دولة الفدرال كده أقسمها كوني رفرق عيسى قضب هبلا جبيدين لي لكن دولة قبلات كلا ولي وعي شو إيه سؤولية من فازنين يبني ونك قبضنا قضبة قاركم ده حقوقنا لنا حتى دولة الفدرال كقاضي تقوم دستور كلنا أو دستورية ويكون ده الوقدنا وإذا رميلك قرن كوي أنا يتحق لي ذا أنا إنه ميل راي حقوق كود ونكلمة دستور كبتاسكم ملته أنا إنه هالملته هذه ميل راي قدام بيتي أجاسمياشة وزارة الدستور كدولة الفدرال كإيكو فرق البلد محدين محمد عبوكر زبير مصطفى شيخ iyo qaban qaabay barnaamijka saabsan dastuurka iyo ku hadalay goobta siyaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed ee annaga ka federaal ahaan nagu adagtay inaan gaarno waxaan rabnaa marka barnaamijkan inay nagu sii dhawaadaan ama naga xigsadaan bulshada rayidka koonfur galbeed nagu xigsadaan iyo wasaaradeedii iyo wasaaradaha kale ee khuseysay iyo shugaan amarka marka qaabkaas ayaynu ku bilaabnay marka waanu wadi doonaa marka kaliya waxaad ogtihiin ama marxaati ka tihiin wasaaradda arrimaha dastuurka heer federaal in ay xoojinayso in ay sii daadajiso waxbarashada iyo howlaha dastuurka inay u sii daadajiso bulshada dowlad goboleedka tagto waxaan xusuustaa intii event ama howlo ee ka dhacay magaalada Muqdisho inay aad iyo aad ugu farbadan yihiin howlaha ama arrimaha aan ka sameyn dowlad goboleedka dalka koonfur galbeed kaliya ama baydhabo hadaan soo qaato tusaale ahaan sanad gudaheeda waxaan imaanay 6 jeer marka lixaad aan imaanay way macnaheedu waxa weeyaan labadii biloodba hal mar ayaan imaanaa taasina waa horumar aad iyo aad u weyn dowladii hore wad xasuusitay waxaa laga yaabaa dowladda dhanba ama wasaarad inay 4 sano ee dowladdaasi jirto hal jeer ama 2 jeer inay ka tagto ama gabi ahaanba inaysan tagin ani teerankii hore ee dowladda waan ka shaqeynayay koonfur galbeed ilaa ay dowlad goboleedka dhan 4 sano waxaan imaanay hal mar isteedii aan gabi ahaanba tagina jira sida jowhar oo kale maba inaan tagin and I think garow xitaa ma inaan tagin waxaan tagnay ama Kismaayo aad u xasuustay xitaa marka xuslaantu waxay keenaysaa inaan meelaha aan gaarnay aad u yartahay koonfur galbeed muddo hal sano gudaheed haddaan 6 jeer aadnay maxaad u malaynaysaa 3 sano soo socod inta jeer aan imaan karno amaba howlaha wasaaraddan koonfur galbeed ay qaban karto oo gaar ahaan annaga aan u igmaday ay samayn karaan xitaa haddaynu ka maqannahay howlaheeni iyo waxyaalaha aan u igmaday wasaaradda arrimaha dastuurka ee koonfur galbeed ayaa runtii idinla jiri doona socon doonana insha Allah taas ayaa naga go'an tababarkan aad u muhiim u yahay qof ayaa ka dhawaajinaya gudoomiyaha sosiyete oo maleynaya oo ayaan loo arkin iska workshopkii caadiga ahaa waxaad ka faa'iido maanta bulshada kale ayaad ugu faa'iideyn doontaa bulshada ayaana muhiim u noqonaysaa maanta inaad bulshada gaarsiiso ayaa waxay keenaysaa in afkaartii aragtiyooyinka laga helo bulshooyinka maxaa yiraahdaa koonfur galbeed inuu noqdo mid wax ku ool ah barkuun iyo socod doona intiisin eedan qayb qaadatan waana hadhow dambana way balan rajeeyahay oo qorsheeyahay wasaaradda dastuurka oo koonfur galbeed iyo wasaaradda dastuurka oo arrimaha dastuurka oo heer federaal waliba qorsheeyayana intii la daadaadi barnaamijku ilaa iyo heer degmada deersi marka hadhow dadku walaas deersi doon wax ka dhaxbaa doon dadka la tababaray isigaan ku dhaxbaa doon marka saas dartiye lamada maalimood oo walaawan socod doona way la faday qof kasta waqti jay masqaxdiis iyo meel raayisa attention jay intuu say barnaamijkaas ay tiin runtii barnaamijku si aragaytan dowladda federaalka wasaaradda arrimaha dastuurka wal badan yaa ka shaqeeyay laakiin geekoyba maraay heer isteeda maraay heer federaal ma barnaamijku TOT-giisa aragaytan
bili abriil yaa waybal wasaaradda arrimaha dastuurka oo koonfur galbeed iyo dad oo civil society ku socdo la qaaday waybal la jeeyay abriil muqdisho la jeeyay dhammaan isteedon dad ku socda dadkaasi ilaa hantaw baray ilaa farmaale muddo ilaa hantaw baray barnaamijku civic education meel kan geekisin argaytan waxyaabaha ay la hantaw baray way baa markii wadan jeeyo kanagada isteedkii kanagada intii barnaamijku deersiyan bulshada rayidka iyo dawladda intii deersiyan geeka markuu way buay phase 1 oo nin ku furmahay barnaamijku intaasaytii oo civic education kaleero maalintaas waxyaabaha la ka ballamay federaalka dad ha ka codsatay way baaytay intii markii la nagada isteed iyo qorshe lu kooya qorshigaasaytina kala wada shaqeeyaan wasaaradda oo federaalka geek way baantin inkrooya marti wasaaradda federaalka ku socota agaasimaha guud ee roog oo dastuurka oo wasaaradda dastuurka dadkaasi kaliya walaal intuu kooyan warkarad ma intii kormeera barnaamijku waxbarashada madaniga leerow si uu socod iyo qaabkiisu ka bilaawda intii kormeera markuu way barajayaan dadka la xuladi oo intuu kooyan way barajayaan intii ku faa'iideyso doonta tababarku ونين يسلرونه إن شاء الله لما مالي موضوع نسوعه لما داس مالي مود وهذا دونت والعشر اللي بيقولوا ما عشر هانو ولا بيه ضدكين تبضوا ولا شيء ولا فضوا يسيون بعدما حقوقاتك وواجباتك يوم مواطن نمد يقاطك عن قيم قاعد الله يتقوانت أو ودانك كديها هير سياسة هير نقار هير برشة هذا لو كوفضاي مركون ويلا فضاي قف أو إيه muddooyinkan ka dambeeyay mayba dareeray dadaalo la hormariyay dastuurka qabyo qoraaleedka dalka maybana jaray kulamo leenqobadi ururada bulshada rayidka si walin ku fahamsay dastuurka dalka maxamed nuur maxamed cabdullaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya baydhabo